Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Saaxiibayaal soo dhawaada meel kastaad caalamka joogtaan. Halkani waa Doog Academy. Waxaynu bilaabi doonaa ama waan idiin soo gudbin doonaa qaabkii aan u sameeyey systemkan halka uga jeedin, kaasoo aanu sharaxaad hore uga bixinay video aan soo dhignay bartina TikTok. Runtii dhalinyaro badan ayaa soo codsadeen inaan video kasoo sameeyo qaabkii aan u sameeyey systemkan. Marka أنا waxaan go'aansaday inaan soo gudbiyo dhalinta bal qaabkii aan u sameeyey systemkan. Ugu horreyn waxaan qof walba kula talinayaa amaba khasaba inuu haysto Excel version-ka 2019 iyo wixii ka dambeeyay. 2019 iyo wixii ka dambeeyay haddii uu kugu jiro waad nala jaan qaadi kartaa. Haddii aadan haysan waxaan kugula talin lahaa inaad maaragtay soo cusboonaysiisatid oo aad ku shubatid 2019 ama wixii ka dambeeyay 2021. Ugu horreyn waxaynu bilaabi doonaa bal inaynu systemkeena aynu design garayno oo video qayb ayaynu ka dhigi doonaa. Hal qayb kama wada gaarsiin karno, waqtiga dheeraanaya, videoga aad u dheeraanaya. Marka videoga inuu dheeraadana ma rabno. Marka ugu horreyn waxaynu bilaabi doonaa inaynu bal design-ka iska hormarino at least. Marka waxaan furan doonaa new workbook, control N ayaan taabanayaa, kadibna new workbook ayaan furanayaa. Waxaynu u baahan doonaa sheet tabs ayaynu u baahan doonaa. Sheetska ayaynu mataqaanaa kan u horeeyo oo kale sheet 1 waynu bedelaynaa. Waxaynu bedeli doonaa dashboard. Waxaynu kala u baahan doonaa iyadana mid kale dhowr ayaynu u baahanaynaa. Marka kan waxaynu la bixi doonaa fee collection. Kan isagana waxaynu ula bixi doonaa exams. Mid kale isagana waynu u baahanahay waynu ula bixi doonaa search meesha ka search gareynayni. Waxaynu kala u baahanaynaa top 10 meeshan ka soo muujin lahayn 10 arday ee ugu sarreeya. Good. Inta markaynu haysano waxaynu ku noqon doonaa dashboard-keeni. Kadibna waxaynu samayn doonaa bal inaynu qaybtan color soo gashano. Ugu horreyn waxaan sameynaynaa isku furi doonaa merge and center ayaan dhahayaa. Kadibna wax yar ayaan xagga usoo durkinayaa. So color inaynu siino ayaan idinka rabaa. Color ayaan siin doonaa like this camal. Haddii color-ka khasab maaha, anything aad rabtid aad ka dhigan kartaa. Haddaad rabtid more color ayaad sii tegi kartaa. Kadibna mid uun oo ku qanciya ayaan kasoo dooran kartaa. Kii allaalihi ka rabtid kii aad ka heshid. Okay. Kan waxaan samayn doonaa isagana waan isku furi doonaa. Kadibna in yar xagga usoo durkin doonaa. Waxaan samayn doonaa xaggan inaan ku diyaarsado sida aad xaggan uga jeedid. Waxaan ku haystaa xaggan total fee collected iyo mataqaanaa okaas. Marka waxaan diyaarsan doonaa kuwan diyaarsan doonaa. Waxaan dhown design garaynaynaa. So iyo buttons-ka iyagana inaynu iyagana mataqaanaa samayno. Bal buttons-ka baan ku horeyno. Ugu horreyn insert ayaan tegi doonaa. Kadib waxaan leeyahay illustration-ka ayaan ku dhufanayaa shape. Kadib rounded rectangle-kaas oo rounded corners-ka ayaan soo qaban doonaa. Xaggan aan tegayaa anigoo qaybta right-ka mouse-ka haya. Kadibna waan ku jiidayaa. Okay, xoogaa center-ka aan keeno. Then waxaan ku soo dari doonaa aan hagaajinaynaa. Horta waxaan ku sameynayaa xaggan galowga kale waxaan ka dhigi doonaa something like this. So marka hore color aan siiyo ama aan tagaysiga ku soo daro si martaqaanaa isagana ku right click anigoo ayaan diro ku dhaxaya. Okay, xaggan waxaan iskaga qori doonaa mid iskaga qurxisan doono dashboard ayaan ku qori doonaa. Kadibna little bit center-kan geynayaa. Okay.
waan isku group garayn doonaa. Shift ayaan qabanayaa kan waan shift ayaan qabanayaa kadibna control G ayaan leeyahay. waxaad dhihi kartaa right click group kadibna group ayaa leedahay. waa isku group garaynay. hadda shay formatka ayaan tegi doonaa. waxaan color ayaan siinaynaa. So kan oo kale let me aan siiyo. Okay, waxaan u baahanaynaa waxaynu u baahan doonaa dhowr xabo soo ku beenina control C ama right click copy haddaad rabtid. xagganaan V control V kadibna waan kala jeedin waan kala qaadaynaa. kan xagga hoose igee kana san ii soo qaad kana ii soo qaad kana ii soo yeer hagaaji xogaa centerkan keenaya. waxaan u baahannahay at least 5 xabo meelahaas aan filayaa. so hadda 4 ayaan haysanaa. mid kale ayaan u baahannahay. mid kale ayaan kusoo darsanayaa isagana control V aan isku dhaweeyo xoogaa. okay, butonadii hadda waynu haysanaa. marka waa inaynu kalaradooda kala bedbedelo. kan oo kale kalarka waa inaan ka bedelaa. waxaan siin doonaa adi kalarka dooqa ka ciyaar. khasab maaha inaa kan ka dhigaya aad ka dhigtid. kan oo kale isagana cagaarkaas u daayo. hal kalarna waa ka dhigi kartaa oo no problem. kaasna kaas kale. okay, kana ka iskaga deysto. waa hagaag. okay, xaggan waxaan ku diyaarsan doonaa haddaba sideen soo sheegnayba waxaan ku diyaarsan doonaa total fee collected ayaan dhihi doonaa. waayahay, kana waxaan ku diyaarsan doonaa isagana kan iga tir. waxaan ka dhigan doonaa total outstanding kan laftigiisa waxaan ka dhigan doonaa total students. aynu kusoo muujin doonayaan ardayda aynu haysano. waxaynu kaloo u baahannahay total students paid yani waa ardayda lacagta aynu ka hayno. ardayda aan lacagta ka hayno. okay, waxaynu kaloo u baahannahay ardayda lacag qaybta bixisay ayaynu u baahan doonaa inaan soo bandhigno. partially paid. waxaynu kaloo u baahannahay total students unpaid yani ardayda oo lacagba aan bixin inaynu soo qabano. filaya waa inuu dhan tahay. total fee collected, total outstanding, total students, total students paid, total students partially paid iyo total students unpaid. waayahay, intaas haddaynu haysano waxaynu kale u baahan doonaa qaybtan iyadana inaynu kasoo muujino haddii laba ku roon yahay aan kalaasyadii soo form 1 ayaan kasoo muujin doonaa. form 1 wuxuu yeelan doonaa A, wuxuu yeelan doonaa B, wuxuu yeelan doonaa C. intaas ayaynu u daynaynaa. soo intaan ii koobiye xaggan waxaynu kasoo muujin doonaa studentska section walba dhigta. okay,
xaggan ayaan tagi doonaa intan control C ayaan leeyahay xaggan aan tagi doonaa V xaggan aan tagi doonaa V xaggan aan tagi doonaa V afar class ay u baahannahay so wankan sorry kan waxaan ka dhigi doonaa 2 kan waxaan ka dhigi doonaa 3 kan waxaan ka dhigi doonaa 4 good kan waan soo yara dhaweynaynaa haddaba space yar ayaan siin doonaa kana space yar ayaan siinaynaa kana sidoo kale space yar ayaan siinaynaa okay yani waa spaceyada yar ee u dhexdhexaysiin doono sidoo kale okay kan haddaba aan waxaan u bedeli doono horta aan leekaysiiyo sorry kan waa inaan marka u bedelnaa table ahaan waa inaan u bedelnaa oo waan hareynayaa kadibna control T ayaan qaban doonaa hidden malahan soo tigta ka qaad haddii ay ku saaran tahay filter button iskaga qaad headerkan iga tuur first column-ka ayaan rabaa good so design-kan iska bedeli doonaa something like kan camalaan ka dhiganaa kii ku qanciya adi ka dhigo khasab ma ahan in ay la raadid good intaas waynu haysanaa waxaan hadhow dib u design garayn doonaa xogaa okay waxaan isku furi doonaa intan oo kale ama halkan aan ka bilaabo merge and center kadib waxaan dhihi doonaa v summary ayaan dhihi doonaa table yar qoraalka aan qaadno bold aan ka dhigno size-ka aan ku yara taro then we'll give yani background ayaan siin doonaa more ba aan dhaho kaas aan soo qabsado good intan hataa aan ku daro aan wareegnay okay yes hadda intaas waynu habaysanay okay kan isagana waxaynu samayn doonaa isagana sidoo kale waan isku furi doonaa labadan meesha ayaan leeyahay yar ayaan durkin doonaa waxaan kale oo sameynaynaa waxaan u baahannahay intan oo kale kan oo kale isagana isku furno then yar aan durkiyo space yar yes waxaan samayn doonaa intan oo kale aan isku furo intaas kale aan isku furo kadib waxaan ku qori doonaa v collection ayaan ku qori doonaa then yar kor u qaad bold ka dhig farta ku dar good okay color background ayaan siin doonaa soo horeyn bal xaggan aan mid soo siino null color ayaan leeyahay something oo blue amal aan siin doonaa weliba custom leh good xaggana aan siinayaa colorkan camal hagaag intaas waxaan kala u baahanahay marka waxaan u baahannahay okay in table-ka headerskiisi aynu marka qeexno waxaan u baahannahay student ID waxaynu kala u baahan doonaa student name waxaynu kala u baahan doonaa phone numberka waxaynu kala u baahan doonaa class section ayaynu u baahan doonaa waxaynu kala u baahan doonaa total fee waxaynu kala u baahan doonaa amount paid
waxaynu kale u baahan doonaa amount iyo lacagta qofkaas kusoo hari doonta haddii lacag uu yeesho. waxaan kale u baahannahay stairskii. waxaan kale oo u baahanaynaa bilihii. So bilaha waxaan ka bilaabi doonaa August. kabacdi waxaan samayn doonaa aan ku jiidayaa xaggan aan qabanayaa. Okay, ilaa aan ka gaarsiino. Okay, kan waa baahnin July ayaan ugu joogo. Okay, waxaan kaloo u baahannahay payment date-ka ayaan u baahannahay. Payment date. waxaanu kaloo u baahannahay payment method-ki ayaan u baahannahay. Okay, good. intaas markaynu haysano waxaan samayn doonaa table oo bedeli. iminka table baan bedeli doonaa. waxaan dooran doonaa selka u horeeya. kadib waxaan tegi doonaa kan ugu dambeeya. markaan tago waxaan qaban doonaa shift. shift kadibna wuu i highlight garayn doonaa. kadib waxaan leeyahay control T, table igu bedel. hidden buu leeyahay. then filterskan iga daa. designkana iska yar bedeli. kaasaan ka dhigan doonaa. Okay, waxaan u baahanahay marka bilahan inaan maaragtay soo koobno, soo yarayno. sidii oo kale selkanan August baan dooran doonaa ilaa July. shift kadibna click. kadib waxaan isla qaban doonaa Alt plus H. kadibna xarafka O baan taaban. kadibna xarafka I baan taabanaya. saa ujeedidba way inoo soo yaraadeen. Okay, then waxaynu u baahannahay haddaba classkan waxaynu u baahan doonaa inaynu ka dhigno mataqaanaa drop down. waxaan tegayaa taabka data. kadib waxaan dooran doonaa data validation. xaggan waxaan ka dooran doonaa list. kadibna classyadayna ayaan dooran doonaa. tusaale form 1 comma ayaad u dhexaysiinaysaa markaa rabtid selection. kadibna waxaan leeyahay form 2 comma form 3 comma form 4. good. form 1 2 iyo 3 iyo 4 waynu haysanaa. so okay ayaan leenahay. hadda saa ujeedid waa maxay waynu select garayn karnaa. sidoo kale sectionka laftigiisa isagana waxaynu u baahannahay drop down. kadib list. xaggan waxaynu gelin doonaa A comma B comma C. saddexdaas ayaanu ka dhigan doonaa. iyadana sidaa ujeedid A iyo B iyo C ayaynu ka dooran doonaa. waxaynu kale oo mataqaanaa waxaynu kale u baahannahay okay, columnkan dheeriga iga tuur. delete dheh. well, tablekaasi wuu inaga dhan yahay filayaa. iyo wax dambe nagu soo baxaana waynu habayn doonaa. okay, exams ayaan tegi doonaa. sidoo kale isagana qaybtan waan isku furi doonaa. home merchant center iyo la soo jiidi. kadib color ayaan siin doonaa. more dheh. waxaan siin doonaa color like this. okay, qaybtan kan waan isku furi doonaa sidii oo kale. waan yarayn doonaa spaceka. okay, intaan isku furo. kadibna waxaan ku qori doonaa examination. examination table baan iska dhaho. qoraalka kor ayaan qaadi doonaa. xoogaa booli baan ka dhiganaa. 40 waynu
yara kordhin doonaa, color ayaan siin doonaa. So colorkeena waxaan ka dhigi doonaa kan, laakiin waa inaynu khafiifino. Ogaa SBB ayaan ka dhigaynaa, weliba kor iyo qaadno. Good. waayahay isagana maxaynu u baahan doonaa haddaba? waxaynu u baahan doonaa kolomyadii waa inaynu haddaba isagana mataqaanaa sheegno headerskii. waxaynu u baahan doonaa student ID oo aynu ka keeni doono tableka ayaynu ka keeni doonaa fee collectionka. waxaynu kaloo samayn doonaa student name ayaynu u baahannahay. waxaynu kaloo u baahannahay class. waxaynu kaloo u baahan doonaa sidii oo kale section. intaas marka aynu ka sameyno, marka waa inaynu maadooyinkeenii haddaba sheegno. islaamika ayaynu ugu horeysiin doonaa. waxaynu ku xijin doonaa Arabic. waxaynu ku xijin doonaa Maths, English. waxaynu kaloo ku xijin doonaa Physics camal. waxaynu ku xijin doonaa Biology. waxaynu ku xijin doonaa waxaynu haray Geography. Okay, waxaynu ka tageynaa Islamic, Arabic, Maths, English, Physics, Biology, Geography. Chemistry ayaan ka tagnay. Chemistry. Okay, waxaynu u baahannahay marka sidoo kale waxaynu ka tageynaa History. waxaynu marka u baahannahay total marks. waxaynu kaloo u baahannahay percentage. waxaynu kaloo u baahannahay resultigii. Good. kanna waxaynu u bedeli doonaa table. Okay, control T ayaan leeyahay. Yes, headerisa. Okay, filterskan iga qaad. So isinka waxaan ka dhigan doonaa maanta dookhaaga ayaan hadda kan oo kale ayaan ka dhigi karaa. Okay, waa inaan xiisadahan isku soo yareynaa iyagana. space badan inay qaato marna waayo tiro yar in gelin doonaa, qoraal badan ma qaadan doonaa saliskoodu. So ilaa historyga shift ayaan qabanaya, isla highlight garanaya Alt plus H kadibna waxaa leeyahay OI. Good. saa ujeedid buu isku soo yara urureen, maanta isku soo yaraadeen. marka colorkan tirabna ilaa xagga waa gaarsiin karnaa ilaa tableka merge and center ayaan leenahay. Good. kaasna wuu inaka dhan yahay. Okay, waxaan u baahan doonaa button xaggan iyo button xagga ah. So kan oo kale ayaan tegi doonaa, kadibna waxaa leeyahay control C. kana imanayaa control V ayaan ku leeyahay. ayaan soo turkin doonaa xoogaa aan yareeyo. Good. colorkiisa waa bedeli karnaa. color kale aan siino si uga muuqdo, kaas kale aan dayo. kana waan tegi doonaa control V ayaan ku dhihi doonaa. yarayno. Good. So kan waxaan rabaa marka aan taabto inuu taqaanaa igeeyo dashboardka inuu igu celiyaan rabaa. So hadda marka click siino kaas dashboardka ayuu ku celin doonaa. kan fee collection kana sidoo kale ayaan gelinaa, leenahay link kadibna dashboard ayaan leenahay. Good. isaguna ma shaqeynaya. Good. waaye intaas
markaynu haysano waxaynu u baahanaynaa iyadana searchingkii inaynu mataqaanaa isagana aynu habayno. labadan isagana waan isku furi doonaa merge and center, kadibna color ayaan siin doonaa. let me say kaas kale aan siiyo isaga kan inu dhaho uma roona. so let me say cagaar darka kalarka adisa rabtid waa ka dhigan kartaa. yani button ayaan kusoo darsan doonaa sidii kuwii hore aan kusoo sameynoo kale. kan sidiisaas baa ahaado. link ayaan dheernahay, kadibna dashboard. good. kan isagana waan isku furi doonaa, kadibna waan yara durkin. good. xoogaa kasoo fogey. yes. intan oo kale isagana waan isku furi doonaa. waxaan u bixin doonaa oo kaleeto search. yar kor u qaad, farta bold ka dhig, yara weynee. color ayaan siin doonaa. okay, more color. colorkaas bibiyaha ayaan siin doonaa. okay, isagana waxaynu u baahan doonaa meel aynu gelino ma qofka loo tilmaamay inuu geliyo student ID-ga. student ID inta ayaan leeyahay. kadib waxaan kasoo boodi doonaa name-ka. waxaa kaloo u baahannahay class. waxaa kaloo u baahannahay section. waxaynu kaloo u baahannahay fee paid oo lacagta u bixiyey. waxaynu kaloo u baahan doonaa amount due haddii lacag lagu leeyahay. waxaynu kaloo u baahanaynaa statuskiisa. qofkan lacag miyuu bixiyey ma bixin miyaa, halkaasaan ka ogaan doonaa. so intaan hareeyo well. okay, intaas waan haysanaa. waxaynu kaloo u baahan doonaa intan aan soo koobiyeysto control C. xaggan oo kale aan fee ku dhaho. intan waa u baahnay, kan waa u baahnahay, kan waa u baahnahay. kan uma baahnin. waxaan ku bedeli doonaa total marks. okay, kaasna waxaan ku bedeli doonaa percentage-kii. kan isagana waxaan ku bedeli doonaa result-gii. good. kan aan ku fit gareeyo. intaas waynu haysanaa. so waxaynu u bedeli doonaa xaggan aan kusoo daro insert aan dhaho down. yes. no fill ayaan leeyahay. good. aan sameynaya inta isku furo. okay, so kan aan iraahdo insert mid. sorry. okay, xaggan waxaan ku sheegi doonaa inuu kan yahay mataqaanaa exam info. xaggan waxaan ku sheegi doonaa inuu yahay fee info. fee information iyo examination information. okay, kan inta markaa table ayuu bedeli doonaa. control T ayaan leeyahay. then ma rabo headers.
okay rowga iga qaad first column-kana ii saar okay saasaan ka dhigan doonaa oo kaasoo kale iga dhig kana isagana control T deh okay header-ka ka qaad so first column-kana ii saar waayahay color ayaynu isagana u dooran doonaa iskaas kale ma diisto colorkaadii dookhaaga iyo weeye good intaas markaynu haysano xoogaa hadaba kan aan turkiyo kana aan yara turkiyo isagana good okay halkan tabtenka waxaynu ka keeni doonaa xaggan table-ka mataqaana waan headerskiisa waan highlight gareynaya kadibna waan kuubinaya control C tabtenka ayaan tegi doonaa labada isku furo horta hore okay xaggan aan tegi doonaa xaggan kadibna V ayaan ku leeyahay control V musuqaan miya control C control V good table ayaan u bedeli doonaa iyagana okay ayaan leeyahay aan ka qaadaya filteriskan okay design-kana naga bedelo saasaan ka dhigan doonaa okay magaca ayaan table-ada hadaba magac u bixino kan waxaan u bixin doonaa top 10 good okay top underscore 10 underscore 10 okay table-kana sada magac buu inoo wataa kan waxaynu isagana u bixin doonaa v info kan waxaan bixin doonaa exam info okay kan examka isna waxaan bixin doonaa examis good kan waxaan bixin doonaa isagana v collection ayaan bixin doonaa yes okay button-kan mid ka mid ah kuwan aan koobiyeeyo aan xaggan geyno isagana yaraan soo durkiyo then control V ayaan ku leeyahay good isaguna waxaynu ka celin doonaa dashboard-ka good color aan siino kan more aan dhaho waxaan siinaynaa kanoo kale dark ah well kan aan isku furnay isagana sidoo kale aan isku yara duweyno intaan table-ka iyadana waan isku furi doonaa waxaan dhihi doonaa top 10 students camal color ayaan siin doonaa more ayaan leeyahay kadib kanaan siinayaa biyaan ka dhigayaa xoogaa good bold farta yar kor igu qaad siiskan igu tir wad ifay caddaan haddaan ka dhigo farta dankaas bay u daa
good. hadaad doonto tableka waad gaarsiin kartaa John Center. Good. Yeah. Okay, hadda waxaa inoo dhamaatay. I think ini wax inoo hadheen malay maayo. Okay, waxaa inoo dhan designkii. Designka waad bedbedeli kartaa, ka warwarin. Waxaa rabtid ayaad ka dhigan kartaa. So kuwan iyagana waynu habayn doonaa. Waxaynu ka dhigaynaa aan iraahdo horta kan control ayaan qabanayaa, kadibna inta waan isla highlight garanayaa. Waxaan rabaa inaan color gaar ah siiyo. Okay, kaas baan siiyo, farta pole aan ka dhigo, size-kana aan yara weynayo. Okay, aan la siiyo space-ka, kan naftigiisa pole iga yar dhig, size-ka yar ku dar, mar isla sameeyoba. Control ayaad qabanaysaa markaa rabtid inaad dhowr xabo highlight garaysid, kadibna waxoogaa pole ayaan ka dhigayaa, size-ka hal mar ayaan ku dari doonaa. Good. As a table. Kana kale iga dhig. No. Hidden ma baahni. Farta waxaan ka dhigi doonaa pole. Size-ka yar. Control qabo, hal mar maaragtay si ay kaaga dhamaadaan. Kadibna format as a table oo naga diiday. Format as a table. Kalarada waad kala bedeli kartaa. Okay. Kan waxaa la yaasigana format as a table. Header no. Okay, kan aan ka dhigo format as a table. Yes, header maya. Filterskan iga daa, headerkan iga qaad, kan oo kale isagana headerka iga qaad. Kan laftigiisa filterka iyo headerka iga daa. Okay. Kan isagana kuwana mataqaan waad ka dhigi kartaa color gaar ah, hal mar baad waxaad sameynaysaa control ayaad qabanaysaa. Color gaar ah waad siin kartaa, xaggan waad tegi kartaa. Morph sorry. Kadib waxaynu dooran doonaa kan oo kale aan siiyo. Good, farta waxaan ka dhigi doonaa white. Kuwan iyagana aan pole ka dhigo hal mar. Pole ka dhig, hal mar ku dar size-ka. Hagaag. Hadaa rabtid mataqaanaa saas aad u kala yara durduurki kartaa si aad marsta space u heshid kale. Yarka durki. Saas waad samayn kartaa. Good. Okay, hadda design-keena waa inoo diyaar. Kuwan farta aynu caddaan ka dhigno si ay u muuqdaan. White ayaan ka dhigi doonaa. Yes. Okay, videogeena intaasaan kusoo koobi doonaa. Design-keena ayaan diyaarsanay. Kadib waxaanu bilaabi doonaa shaqadii ahayd inaynu automation ku samayno. Wixii design oo dambe inoo mataqaanaa dhiman dib inoo kaga soo bixi doonaa, markaas waan ku dari doonaa. So qaybtan intaas ayaan ku gabagabayn doonaa.
waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe noo dhiirigelisid, muuqaalkana like noo saartid. mahadsanid, inoo iyo fiidiyowga dambe insha Allah.